waxaa maanta magaalada Birmingham ka dhacay shir baroordiiqa shirkaas oo loogu talagalay dhacdadii xooshinimada ahayd ee ka dhacday magaalada Muqdisho dhawaan shirkan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo ku dhaqan magaalada Birmingham oo ay waliba kamid ahaayeen culimaaddin waxgarad dhaqaatiir macallimiin arday iyo caruur runtii aan aad loogu kala harin shirkan ayaa dadku waxay muujinayeen xumaan ay ka xun yihiin arintii ka dhacday magaalada Muqdisho waxa kamida oo iyo laba agoon kulis wax bartay duruuftaas ku bar fiiga jaamacad ku bixi jirtay saxaab hebelow soo maalintii qalin jabinayeen ayadoo joogtay guur ayadina waa rabtay oo joog oo dadkii hadda fadwaadka ay meel fadhiyaan intii shirkan baroordiiqa uu socday ayaa waxaa khadka telefoonka soo galay madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed isagoo runtii ka hadlay dhibaatada ay u geysatay arintii ka dhacday magaalada Muqdisho ummadda Soomaaliyeed marka iyadoo dagaal jira dadka bartay oo waliba qalin jabinayay macnaha waa wax ma sha Allah laakiin haddana ilaahay hadduu kartay maalintaas inuu oofsado wax kala ma dhahayna inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay dadkaas noogu bedelo wax kale oo khayr qaba cudurkana saaran dulmiga dandarada iyo meel kastoo aan taaganahayna ilaahay arrinta iyada inuu wax noogu bedelo adigu Allah reer Muqdisho haday aad balayaan wallahi yaan leedin isticmaalin wax don't be tools yaan leedin isticmaalin istaag oo diina hadii kale idinka hadmayso qowm badan baa jiray waxaa jiray qowm luud qowm waxan qowm caad dadkii soo qadiyo u baabaan kamid soo qadiyo يوتو رسيسها دولة واجدين تدمجين واجدين إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سنة إلى مجلسك إنه أن لدى من داف هي مغفرنا وختمة أنت لما رب سبحانه وتعالى وأن حريصته أنت دعوة على رب سبحانه وتعالى وأكربه وإلهي سبحانه وتعالى وشافيه شفاء لا يغادر سقم دعوة أما حنون أراد لهي رب سبحانه وتعالى وعافيه أنت حنون دريميسه oo ahel dadka ay ka geeriyoodeen rabbi subhanahu wa ta'ala oo samirsiyo sabarkuna waa joogto hore markay qofka ku dhacdo waa inuu sabraawi mar labaad waxaan ilaahay uga baryaa intii dhimatay inuu naxariis jannada ka waraabiyo inta dhaawacana ilaahay uu caafimaad degdeg siiyo intii ummadda uu sabr iyo iimaan ka siiyo bedel khayr qaban ilaahay inuu ummadda u bedelo dhibaatadu waa maskaxda aan saaran ee ayada ilaahay oo toobad keeno كلنا إلهي سبحانه وتعالى قل الله لكي جابك ديك كويا شيو إلهي قل الله لكي أفقي عرب ديك كويا شيو إلهي قل الله لكي متكانا مسكحة يفكرك حمان يديك كويا شيو إلهي قل الله كي تدلي وقعنتي سديك يجيزتيو إلهي قل الله سبحانه وتعالى أن إلهي قول الله من سبحانه وتعالى وإنه توبت كأنه والله دمريا وحا وقدام بينتي أنه تدبضن ويديني bal inay matusaan ama noo sheegaan shucuurtooda iyo waxay ka qabaan dhibaatadaas ka dhacday maalin dhaweyd magaalada Muqdisho dan ku hormaro xamdi su'aashan ku weydiinay waxay tahay arintii maalintii dhaweyd ka dhacday magaalada Muqdisho ee ahayd runtii arin laga naxo bal dareenkaagu muxuu ku leeyahay maxaad soo aragtaa sidee baad soo aragtaa bismillaahir rahmaanir rahiim arintii ka dhacday maalin dhaweyd magaalada Muqdisho gaar ahaan hotel Shamo waxaan u arkaa inay tahay arin aad iyo aad u xun shucuurtayda waxaan ku muujinayaa dadkii falkaas geystay inay mutacallimka iyo indheer garadka iyo aqoon-yahanka baabi'iyaan inay tahay fikrad aad u xun waxaan leeyahay Soomaaliya meel alle meesha joogtiin anagoo ku hadlayna gabdhaha Soomaaliyeed oo degan Birmingham hooyooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aad iyo aad ayaan uga xunnahay dhibaatada ka dhacday Soomaaliya
تعالى رالي كما أهن إن متقانا قفر ديا محصوب برتي ما أنت فرحة ساعة especially خاصة متقانا نوم أرضي أهدان محصوب برتي وما أنت اللي أول مرة لها وأن متقانا إن قرح أما بنبل إن لا يدلو إن متقانا نون وإحنا قلب سنين الله سبحانه وتعالى رالي كما أهن دين دقي سنة مجرته إن قف بنادنا للدلو يوسف أحمد مهدي ETN TV برمنغهام.